inay qayliso maadaama ay ka shaqeyso maqaayad. dhakhtarku wuxuu u sheegay hadda kadib markii ay hadlayso inuu waqti qaado doono hadalkeeda. markii ay weydiisay waqtigaas intii uu la eegyahana wuxuu ku dhahaa waxaa laga yaabaa bilo ama mararka qaar inay gaarto sanado. waxay taagan tahay laakiin aniga hamigayga wuxuu ahaa inaa hayso. wuxuu ku dhahaa haddii ay sidaas tahay waa inaad barataa dulqaadka intii aad baran lahayd haysta. intaasna wuxuu u raacinaa daawadaada waxaa waaye ha qaylin hana nuxnuxleen keliya iska naso. markii ay sii baxaysa dhakhtarka waxay u sheegaysaa inay ku camiro jirtay markii ay aragto dadka ku sugan xaaladan ay hadda ku sugan tahay. markii ay maqaayada timaado waxaa ku soo aadaya midkoo qayladii ka batay oona meel ka daahsan wuxuuna u sheegaa inay u dadaasho. iyada oo rafaadsana midii la shaqaynaysa ka soo gaartay midkaana iyada dalabka ka qaadayso. iyadana waxaa u wacay midkii booskeeda ahay wuxuuna weydiinaa adiga qayladaada koray ahaa jirtay ee maanta maxaa kugu dhacay. wax yar kadibna wuxuu u sheegaa inay iska nasato meeshana ay ku soo laaban karto markii ay rabto. markii ay gurigeeda ku soo laabato mar kale waxay isku dayaysaa inay qaado heystii laakiin haddana ma awoodayso. intaas kadib waxay bilaabaysaa inay taleefankeeda soo qaadato ayna duubto muuqaal ay ku raaligelinayso dadkii ay ku camiri jirtay oo dhan. kadib gurigeeda waxaa ku soo booqanaya midkii ay maalin hore ku camirinaysa oo ku dhahay booskaaga wax walba iisoo sheegay. sidoo kale wuxuu ku dhahay aniga waxaan ahay tababare dadka ku tababaro hadalka. alaab oo hore ugu soo qaaday intuu ku wareejiyo gurigeeda gudaha u soo gala. intaas kadibna waa kana isagoo ku tababarayo sidii ay u hadli lahayd. 2 asbuuc kadib maqaayadii dib ugu soo laabatay waxayna u muuqataa inay soo caafimaadday maadaama dadka si wacan dalabka u qaadayso. midkii macalinkeeda ahayna meeshii uu ku soo booqanaa wuxuuna ugu hambalyeynaa inay caafimaadkeeda dib u heshay. ugu dambayna muuqaalkeenu intaasuu ku ekaayay hadda halkaas soo gaarta leegnoos ah.